السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام دمان والعلي الصوماليات مالكستو جوجتان maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago sida loo sameeyo looska rootiga la marsado oo loo yaqaano peanut butterka. maxaa la dhahaayay daawasho wacan channelka doo idinku cusub yahay kusoo dhawaada, subscribe-ka hala saaro, maxaa la dhahaayay notification bell-kana hala daarto si wixii aan soo dhigaa oo la socotiin asxaabtiina kale la sii wadaaga. inta badan channelka waxa waaye wax oo ilmaha anfaco iyo wax hooyooyinka anfaca soo gelin doona iyo waxyaabo kale oo badan biidnillah. markaad waxa guda galeynaa hawsheeni waxa u baahannahay loos. aniga maxaa la dhahaayay loos suuq ka soo gaday caadi waa la cabiraa naagaha oo raashinka badarka gadaan marka looska waa finjilisa u jeediin. maxaa la dhahaayay looska markaa finjil kadib waxa u baahan tahay looska inaad dubtid haddii kale macaan ku noqonayo. marka waxaan ku dubayaa galeydaas shiidan. waagi hore ciid lagu dubi jiray laakiin hadda ciid nadiif oo la isku wax lagu dubi karo ma lahan. marka ciid waxaan ku dubayaa galeydaas soorta shiidan aan ku dubayaa. marka waa kasaa marka oo dubmana looska wuxuu noqonayaa maqaarkiis madow camal guduud tiq oo noqonaya. marka waa kasaa kabacdi hadda waxaan ka bixinoyaa galeydii oo aan ku dubaan ka shaqooyaa kabacdi qolofka ka soo fiiqaya marka soo fiiq kadibna saas oo noqonaya u jeedid. kabacdi looska waa soo budeynaya marka qalaadada oo sisinta iyo wax lagu shiiday yariista aan ku shiidaya budaa ka soo dhigaya. maxaa la saa u jeedinbo looska waxa waaye waxyaabo badan oo faa'iido u leeyahay. looska waxa waaye saliid nadiif oo caafimaad leh ku jirto ilmaha way jecel yihiin. waxaa jira laakiin dad oo allergy ku qabo ama xasaasiyad ku qabo marka haddii aad hubtid cunugaaga inuu wax xasaasiyad ku qabin waxyaaba protein kale because protein ka buuxo looska ha iska siin cunugaaga adiga le cun haddii aad xasaasiyad adina ku qabin because digir gaduuda iyo looska iyo waxyaaba protein ka buuxo inta badan ilmaha xasaasiyad ay ku qabaan marka iska ilaali adoo hubin ha siinin cunugaaga waxa uu xasaasiyad ku qabo. marka hadda si baashiya shiidayna xoogaa soo buday hadda qalaadada weyneed ku gidiya waxyar saliid loosa ku daraya saliid looska qofka u baahan bakaaro ka helaya. waxaan kaloo hadda ku daraya wax yar oo cusbo xaalay waxaa kaloo ku darsan kartaa kis yar oo sokor ama kis yar oo malab qofka u baahan. ani laakiin hadda waxa ku maana darin cusbo bis le ku dar iyo looska iyo saliid yareed. marka hadda ku shiid si fiican waxa ku gudsanay weel nadiif oo qaleel haddii oo wax yar yahay isla markaa wada isticmaali kartaa. haddii ku badan yahay caag ama dhalo nadiif oo soo qalajisa inaad ku shubatid fur afka dhab uga siisatid xareesan hadhow qaando qaleel gashanay rootiga ka marsanay waqtiga u baahatid. haddii kale tan kisti waqtigaas cunaysa oo kaliya sameeysan kartaa. marka aniga hadda kis yar sameeyay looska ma badneenbo looska marka qolf ku jiro wax badan oo egyaa laakiin markii la finjilo wax yar soo noqonaya. marka qofkii oo rabin inuu wax finjilo shaqo dheer oo gelinne wuxuu sameyn karaa inuu soo gato looski oo finjila naaga looska gadaan markino wax badan ka gadan kartaa hal mar kabacdi waa shiidanaya adi looska taa saliid in lagu darmo baan haduu badan yahay oo food processor fiican ay haysatid oo wax qoyaan u baahneen in lagu shiido waa ku shuba kartaa si fiican u shiidanay kabacdi hadhow weel ku gadsanay. baashas kala u jeedin waxa waaye mango jam waaye cambo jam aan ka sameeyay qofka u baahan hore u sameeyay fiidiyoasheeda kala fiirsado wuxuu ka helayaa meesha ama linkiga waxa soo dhigaa description box-ka. marka looski waa ka saad u jeedin rootiga marinaya inta badan rootiga marka looska ku daraan waxa jeclaa jamkan inaa kula darsado jamka maxaa la yiraahdaa waa nuucyo badan yahay ana hadda cambaasa sameystay maxaa la yiraahdaa akul cunayna macaan waa ilmahan way ka heli doonaan wuxuu u noqonayaa oo gadis marka qaar suuxi quraac uga dhigo ama casho uga dhigo aad saarabtid because inta badan ilmaha canjeera subaxa mar walba la siiyaa markan ha uga diso yahay way jecel yihiin inay cunaan waxyaabaha cusub caruurta aad ay ugu farxaan. marka u sameey ilmaha ka farxi ila wadaag wixii oo kala kulantid waxa waa horta inaad ka heli doontid because macaan waa maasha Allah waa wax dabiici hubtid aad gacantaada ku sameysatay oo nadiif waxyaabaha gasacaha lagu sameeyo inta badan waxa chemicals ku jiraan. marka waa mahadsantihiin daawasho wacan jazakumullahu khayr. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.